xildhibaanada qaranka madaxda amisom waxaa loo baahan yahay inay dadka dhan ogaadaan inay nolosha muhiim ku yihiin dumarka wax qabadkoodana oo muuqdo dhalinyarada intooda badan sidaad ogtihiin waxaa loo isticmaalaa in wax badan meeshaan inaan ka iraahdo uma soo istaagin laakiin waxaan rabaa arrin inaan idin la qaybsado inta ugu badan waxaa ugu badan wiilasha laakiinse waxaa baryahan la moodaa gabdhaha naftirkooda inay ku soo bateen jaamacadaha xubnaha ka socda wasaaradda haweenka. I've seen many girls being disrupted by people that deceive them. They buy a smartphone. Then you begin missing lectures. You follow the man who has bought your smartphone, or he has bought you shoes, or he has bought you, even if he buys you a car. Those things you can get them for yourself. If you are young, like you are today in university, you have an opportunity to break walls and get where you want. Do not underestimate yourself. Specifically for girls, I want to tell you today that if you respect yourself, remain focused, and you do not get distracted by boys, the sky is the limit. We have a responsibility as women leaders to make you remain focused, respect yourself, stop admiring small things. waxaan maanta ku faraxsanahay aan halkaan aan u joogno sida ardayda jaamacaadka uga qayb qaadan lahaayeen maanta waxaan idinku guwaabinayaa inaad ka qayb qaadataan siyaasadda maanta ka taagan dalka Soomaaliya inaad ka qayb qaadataan nabadgelyada dalka inaad ka qayb qaadataan walaalihiin gabdhaha Soomaaliyeed inaad u turtaan aad u dhowrtaan aad ku tixgelisaan mudnaanta ay leeyihiin sababtoo ah hooyo waa idin dhashay way idin dhixi doontaa way idin dhalatay inaad ku tixgelisaan waxa ay leedahay